qofka aadan hubin inuu adiga keliga ku jecel yahay oo aad is leedahay qof kale kula wadaa. haddaba qofka ku aragto 9kan arrimood qof kale ayuu kula wadaa. aan bilowna saaxiibayaal. number 1, sida ugu degan uguna dhaqsiyaha badan lagama soo jawaabo fariimo qoraal aad la wadaagto qofkaas. sidoo kale haddaad jirto fariimo dheer, dhammaan fariinta lama wada aqriyo. taasi waxay ku tusinaysaa qof kale inuu jiro misna waqti la qaadanayo. qof ugu mashquuli kara dabcan, laakiin ma jiro wax iska soconayo. number 2, haddaad kool garayso oo kaa qaban waayo dib kuma soo wacayo qofkan. waxaa laga yaabaa waqtiguu ka tagay inuu qofkaasi ku soo waco ayadoo marmarsiyo looga dhiganayo mashquul aanan jirin. number 3, qofka kuguma aamino mobilkiisa haddaad isla joogtaan. qofkan wuxuu ka baqaa in lagu arko arrimo qaas oo isaga amba iyada, isla markaana wuu ka qarin ama xitaa kuma aaminayo. halka qof hadduu ku jeclaado aanan marnaba waxaasi ku soo dhacayn inuu sameeyo oo uu ku aamino waxaanan kaa qarsanayn. number 4, xanaaq badan. qofka la jecel yahay looma xanaaqo wax kasta oo dhaca, balse kaan ku rabin adiga. xanaaqa ka soo horeeya laba hadal kadib waa xanaaqa adiga ayaana jecel qofka mar walba u tanaasula. number 5, waqti badan kuma siiyo adiga, ayadoo noqon karta qofka inuu shaqeeyo ama mashquul kale uu jiro, balse lama waayi karo waqti uun. number 6, dulcadeyn ay ka dambayso khiyaano iyo in adiga qof kale lagula wadaago. dhanka ragga markaynu ka hadalno, wiil hadduu gabar si dhab ah u jeclaado wax kasta uu samayn, halka gabar hadday wiil aad u jeclaato marnaba ma qiyaamayso qofkaas, oo haddii qof kale xiriir u soo bandhigtaana way ku gacan seerisaa. number 7, tixgelin la'aan iyo hadal soo koobid. qof hadduusan ku tixgelinayn maxaad waqtiga isaga luminaysaa? jacaylku waa inuu lahaadaa tixgelin, kala dambayn iyo tanaasul, kalsooni. intaas hadduunan jirin qof kale ayaa intaasi loo sameynayaan adiga ahayn. number 8, qofka inta badan wicitaanadiisa oo aad u yar, taasina waxaa ka dambaysa waxay tahay qof kale oo jaanis la siinayo aan adiga ahayn. number 9, wax kasta oo aad dhahdaa waxaa lagugu soo jawaabaa sidoo kale. tusaale haddaad dhahdo waan ku jeclahay, waxaa lagu siinaa jawaab gaaban sidoo kale. waan kuu xiisay haddaad dhahdo waxaa lagu dhahayaa sidoo kale. intaad muuqaalkan daawanaysay qof ayaad ka fikiraysay inuu arrimahan leeyahay iyo in kale. hadduu leeyahay arrimahan kuma daneynayo. waa cabdiraxiim cali oo idin leh khayr.